kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawatay ku soo dhawaada warka wacyi bahada ay kala daawan jirteen qodobada maanta ku maqli doontaan waxaa kamid ah khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan kala fadhiga golaha deegaanka Garowe oo furmay iyo ICJ oo dib ugu soo sameynaysa kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya Amisom garoonka beledweyne u diiday inuu galo mas'uul ka tirsan gobolka Hiiraan waqtiga uu furmay kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la shaaciyay qodobada dibadda ku daawan doontaan warkeena maanta waxaa kamid ah tirada dadka ku dhintay dibadbaxayaasha iyo rabshadaha Ciraaq oo korortay intaas waa qodobada maanta ku daawan doontaan warkeena ku soo dhawaad imikan iyaga faahfaahsan qodobka ugu horeeya warkeena warar dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka Hiiraan kaas oo dhaxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya dagaalyahanada ee ka tirsan al-shabaab dagaalkan ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan waxaana lagu soo ramayaa inuu ahaa mid xooggan oo labada dhinac is dhaafsadeen rasaas socotay muddo hal saac sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dagaalkan uu yimid kadib markii rakulaysan oo al-shabaab ka tirsan ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka halgan sidaas uu dagaal ku bilowday khasaare kala duwan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dagaalka dhexmaray ciidanka dowladda iyo al-shabaab inkastoo aan si dhab loo cadeyn karin inta uu leeyahay khasaarahaasi wararkan keenay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa sheegay in ciidanka Amisom gaar ahaan kuwa Djibouti ay garoonka u diideen inuu galo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada beledweyne Maxamed Cali Dhagaab ayaa laga ceeyay garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif xilli uu doonay inuu ka qayb galo soo dhaweyn loo sameeyo wafdi ku soo socda Hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada beledweyne Maxamed Cali Dhagaab ayaa ciidanka Djibouti u sheegay inuu yahay mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan hase yeeshee ay diideen arrintaas Dhagaab ayaa ku tilmaamay falka ay ciidanka Djibouti ee gacanta ku haya garoonka diyaaradaha Khaliif ee magaalada beledweyne ugu diideen inuu galo halkaas uu yahay mid laga xumaado isla markaana arrintaas laga hadli doono si kasta magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay gaaraan wafdi ka socda maamulka Hirshabelle iyadoo amniga si weyn loo adkeeyay maxkamadda ICJ ayaa toddobaadka soo socda lagu wadaa in dib ugu soo sameeyso cod saddexaad oo ay ka dalbaday dowladda Kenya kaas oo la xiriira muranka badda Soomaaliya ay gelisay dowladda Kenya codsiga Kenya ayaa ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda ilaa September 2020 maxkamadda ICJ ayaa arrintaas ka talagelisay dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya si cad ayay u diiday ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya xiriiryaha guud ee qaranka iyo safiirka Soomaaliya midowga Yurub ayaa goobjoog ka ah dhageysiga labada dhinac Soomaaliya ayaa ku adkaystay inaysan aqbalin dib u dhigid saddexaad iyadoo dowladda Kenya ku dooday in labada bilood ee soo socota oo loo qabtay aysan ku filnayn Soomaaliya ayaa dhinaceeda ku dooday in kiiska dhowr jeer hore dib loo dhigay Kenya ay tahay cid ku xadgudubtay biyaha Soomaaliya maxkamadda ayaa toddobaadka soo socda go'aan ka soo saari doonta waxaana sharci yaqaanada sheegayaan inay adag tahay in Kenya hesho muddo kordhin kara maadaama dhinac ka mid ah dhinacyada dooda ka soo horjeestay waxaa saaka xarunta BDRC caasimada Puntland ee Garowe ka furmay kala fadhiga 27aad ee golaha deegaanka degmada Garowe kala fadhiga waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland wasiirka cadaaladda Puntland xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland maamulka gobolka Nugaanka degmada Garowe isma cuqaal ganacsato iyo marti sharaf kale caasimada Garowe Axmed Siciid Muuse oo khudbad ka jeediyay ayaa hadda ka warbixinaya waxqabadka maamulkiisa ee muddadii u dhaxaysay labada kala fadhi iyo sidoo kale barnaamijyada waxqabad ee u qorsheysan gudoonka golaha shacabka ayaa shaaciyay kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ku furmi doona maalinta Arbacada ee soo socota taariikhda ku beegan tahay 9 Oktoobar 2019 qoraal uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo noqol kamid ah warbaahinta heshay ayaa lagu faray in xildhibaanada dalka ka maqan inay si degdeg ah dalka ugu soo laabtaan kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu waday inuu furmo 27 bishii la soo dhaafay ee September 2019 hase yeeshee dib u dhac aan la shaacin ayaa ku yimid waxaa sare u kacay tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda Ciraaq ee 4 tilmaamood la soo dhaafay dalkaasi ka dhacay kuwaas oo gaaray ugu yaraan 60 qof ila dhinaca caafimaadka iyo ammaanka ayaa sidaas sheegay tirada ayaa laba laamantay 24 saac la soo dhaafay xilli sare ay u kaceen isku dhacyada u dhaxeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska militariga ayaa sheegay shiishihano aan la ogeyn waxa ay yihiin ayaa waxay magaalada Baghdad ku dileen 4 qof oo laba kamid ay yihiin askari booliis ah
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa goor sii horeysay sheegay in dalabaadka saxda ee dibadbaxayaasha la maqlay balse waxa uu dalbaday in la isdajiyo. dibadbaxyadan aan la sii qorsheyn ayaa waxay bilowdeen talaadadii xilli uu sare u kacay walwalka ka taagan shaqo la'aanta heerka sare ee haysta dhalinyarada adeegyada bulshada ee aadka u liitay musuqmaasuqa dalkaasi hareeyay. Arrinta ayaa waxa ay noqonaysaa loolankii ugu weynaa ee ay wajahdo dowladan jilicsan ee Masar Mahdi taas oo awoodda la wareegtay sanad ka hor. wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters oo ku sugan Ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka ay ka qayb qaadanaya dibadbaxyo ay rasaas nool madaxa iyo caloosha kaga dhacday. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada shalay ka dhacay dalkaas sida loo soo xigtay ilo wareedyo caafimaadka iyo ammaanka. dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa hareeyay magaalada Baghdad gaar ahaan deegaanada ay ku badan yihiin Shiicada. waxaa sidoo kale dhimasho laga soo sheegay magaalada koonfurta ku taal ee Nasriya. intaas ayaan ku soo afmeernaa warkii aad maalin walba ka daawataan Wacyi TV hadaaya kala taliya kula dambe amaan Allah.